Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socday hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO oo socdaal shaqo ku yimid dalka. Agaasimaha caafimaadka loo dhan yahay Dr. Peter Salama iyo wakiilka hay'adda caafimaadka adduunka ee Soomaaliya Dr. Mamnuur Rahmaan Malik ayaa hogaaminayay wafdiga. Dr. Peter Salama oo Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ugu mahadceliyay soo dhaweynta ayaa hoggaanka dawladda ku ammaanay dadaalka ay ugu jiraan in dadka Soomaaliyeed oo dhan ay helaan caafimaad loo dhan yahay. Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Xukuumadda Soomaaliya oo goobjoog ka ahayd kulanka dhaxmaray Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya iyo wafdigan ayaa ka warbixisay muhiimadda uu leeyahay dawladda Soomaaliya kulankan. Maanta waxaa xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ku soo booqday wafdi weyn oo ka socda hay'adda WHO fadhigeeda yahay Geneva iyo qaybteeda gobolka bariga dhexe oo Soomaaliya ka tirsan tahay. wafdiga wuxuu isugu jiray khubaro badan oo siyaasadda ka shaqeeya caafimaadka. wuxuu daba socday booqashada wafdiga ballaaran qorshe oo ku yimid regional director-ka xukuma Emro WHO Soomaaliya ay ka mid tahay Qaahiro fadhigooda yahay oo September bishii hore soo siyaartay Soomaaliya waxay 2019 bishii September 20 daahfurtay qorshaha loo dhan yahay ee caafimaad. qorshahaasi wuxuu leeyahay qof walba oo Soomaali ah wuxuu xaq u leeyahay caafimaad asaasi ah inuu helo. waa xuquuq aadami ah qofka muwaadinka uu leeyahay. sidaad la socotaan caafimaadka dalka waxaa maalgeliya intiisa badan deeq bixiyayaal ku taageera Soomaaliya inay siinaan macaawino. waxaa ka shaqeeya hay'ado badan oo UN-ta iyo hay'ado kale oo caalami ah isugu jira NGO-yaal fara badan. package-ka loo design gareeyay uu ku fadhiyo caafimaadka ee la yiraahdo Essential Package of Health Services waa package loogu talagalay in qofka Soomaaliga uu helo. sidaas oo tahay wadanka intiisa badan macaawinada la bixiyay daraadeed wadanka intiisa badan ma kaabilayso ilaa iyo 45% waxa waaye ma dabooli karto dawladda ama dhaqaalaha lagu bixiyo Soomaaliya ma daboosho caafimaadka. qorshahan Soomaaliya waxaa kala shaqeeyay hay'adda caalamiga ee adduunka WHO waxaa maalgelisay oo kala shaqeynaysay maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka caafimaadka wasaaradda caafimaadka WHO iyo dawladda Japan. booqashadii kadib regional director-ka uu ku yimid markii la daahfurayay qorshahan loo dhan yahay ee caafimaad ee lagu afka qalaad lagu magacaabo Universal Health Coverage wuxuu soo diray agaasimihii Emro guddigan heerka sare oo loogu talagalay inay dawladda Soomaaliya wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha caafimaadka maamul goboleedka ee ka shaqeysa sidii loo hirgelin lahaa qorshahan. Soomaaliya ilaa iyo waqti waxaa la diyaarinayay qorshooyin iyo siyaasado caafimaadka meelo badan ee taabanaya. laakiin waxaan ka codsanay inay nala fariistaan oo aan raadino sida ugu fudud loogu fulin kara qorshahan iyo sidii loogu raadin lahaa qorshahan wixii lagu fulin lahaa. saaka waxay u yimaadeen Ra'iisul Wasaaraha si aan u salaamaan uga mahad celiyaan dawladda commitmentiga ay siisay iyo dadaalka ay ku bixinayso mar walba inay hormariso arrimaha bulshada oo caafimaadka uu yahay qaybta ugu muhiimsan. waxaan ku dadaalaynaa maalmahan ay joogaan wafdiga inaan tusno meelo badan fadhiyo badan la qaadano aan ka wada fariisano munaaqasho weyn ka sameeyno sidii loo fulin lahaa qorshahan aadka muhiimka ugu ah oo adduunka oo dhan halqabsiga uu yahay inaanan qofna laga tagin oo maaragtay no one inaan laga dhaqaaqin yacni qof walba Soomaali ah inuu helo caafimaad. marka waa ku dadaalaynaa insha Allah tacaala sidii qorshahaneetu ugu hirgeli lahaa wadanka dhan ugu hirgeli lahaa. qorshuhu waa la diyaariyay waqti waxa laga shaqeynaa ilaa iyo sanad iyo ka badan la isugu tagay khubaro badan oo naga kaalmayso. qorshaha marka la dejiyo fulintiisa waa wax aad muhiim u ah sababta qorshooyin badan oo la sameeyay siyaasado badan oo la sameeyay haddii aanan wixii la dhaqaajinin oo laga shaqeynin qofkii Soomaaliga ahaa in caafimaadkiisa baahidiisa caafimaad ee asaaska aan la buuxinin waa dhibaato. wafdigan WHO waxaa
kaloo la socdo 2 nin oo khubaro Soomaali ah oo waqti badan ka shaqeynayay xafiisyada WHO Dr. Maxamed Cabdi Jaamac iyo Dr. Khaliif Bilo oo runtii naga kaalmeeya in ay natusaan la fiiriyaan sida ugu sahlan Bashiir Cabduqaadir raadiyo telefishinka SBC Muqdisho.